Mukhtaar Cismaan waxa uu ka mid yahay shaqaalaha beer ku taala deegaanka Beira oo qiyaastii gaalkacyo u jirta 25 kiiloomitir. Waxa uu TV-ga caalamiga ee Kalsan uga waramay sida ay wax u beertaan. كل وحنا ورابنا هذا كل ما لنا دافع ورابنا ما لنتي ودور جدي واحد بنك ورابنا أنت كلنا هذا كل من تاسان هذا كل من كهينا قام كهينا لينتي إيو إمبي يعني إيو كروتي إيو دقيرتي إيو قريه أنت زان كهينا. قبل كم مدو ayaa dhul isku jira cas ciid dooxo iyo dul dadkuna waxay aaminsan yihiin in aan wax lagu beeran karin balse hadda waxaad moodaa in aragtidaasi ay dhuntay sida ay qabaan gudoomiyaha deegaanka Beira Cabdiraxmaan Cabdul Maxamuud iyo gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay. waxa way marka Mudug waxa la oran jiray Mudug waxa way beer ma leh Mudug beer ma leh Beira beenisay waxa idin muuqda waa cambihi iyo liintii iyo saytuunkii iyo nooc walba ka baxaya qarihii iyo digirtii iyo nooc walba aan ka baxayn ma jiraan xaqiiqiyan noloshu waxay ku jirtaa ciideen weey hal la xoogsado waxaan leenahay hal laga soo baxo meel kasta waxa way cas ama dooxa ama dul ah xaqiiqiyan beer weey dhulkeenu waa dhul hodana ilaahay ugu ma talagelin inaynu gaajoonno gobolka Mudug dadku waxay u jahaysteen inay ka faa'iideystaan khayraadka dhulka ku jira sida beeraha oo kale waxaad arkaysaa maanta inuu cambihii sidaas mirihii ay u wada saaran yihiin liintii baynu aragnay saytuunkii baynu aragnay rumaankii baynu aragnay waxyaabo badan oo geed mirooda aynu aragnay qudaar baynu aragnay nimcadaas waxa weeye dadka soo saaray kobaca wax soo saarka beeraha gobolka Mudug ayaa imaanaya xilli deegaano badan oo kamid ah gobolka dhawaan laga sameeyay ceel biyoodyo dadku ay uga faa'iideysteen waraabka beerahooda dadka ama dalka jireen ama dibadda jireen qofkii raba in uu beertan oo kala samaysto oo ila tabara sidoo kale inaanu siino booskii iyo waliba ceelkii oo aan raashin biyaha la tuso meesha